hadalka madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan iyo wasiirkiisa tamarta Turkiga Fatih Dönmez ee isbuucii la soo dhaafay ayaa tilmaamaya ififaale sheegaya helista xirmooyin cusub oo gaaska ah halka in shaaca laga qaada tirada iyo tayada uu dhan yahay bisha Juun ee nagu soo beegan. Isniintii la soo dhaafay ayay ahayd markii wasiirka tamarta Turkiga uu sheegay gaaska Sakarya laga helay inuu aad u weyn yahay ay noociisana shaaca ka qaadi doonaan bisha soo socoto. shacabka Turkigana ay la wadaagi doonaan war aysan hore u maqal isagoo tilmaamay in markabka Barbaroos Khayruddin Basha uu ka wada hawshiisa baaritaan gudaha badda madow. sidoo kale madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa bidhaamiyay in uu jiro war farxad leh suurtagalna tahay in la iclaamiyo mardhow helista shidaal iyo gaas dabiici ah oo cusub. dhinaca kale khabiirka tamarta ee Turkiga Rahim Inci ayaa ku sheegay waraysi uu bixiyay in wali cilmi baaris ku socota gaaska Sakarya ujeedkuna uu yahay kordhinta mugga iyo suurtagalnimada in la helo tamar kala duwan. waxa uu intaasi ku daray in gaaska la helay hadda uu qayb ka yahay kayd kale oo aad u ballaaran isagoona xusay in halbeegayaasha qaar ay sheegayaan in xirmooyinka gaaskan ay gaarayaan 850 bilyan oo mitir kuyubik. khabiirka ayaa tilmaamay in la rajaynayo samaynta dhuumaha gaaska oo dhererkoodu gaaraya 155 mitir si loo soo qaado gaaska dabiiciga ee ku jira gudaha badda madow cabir gaaraya 2200 oo mitir.